وحويان وبيلر كيني لبعض medical ethics waxaanu habeenkii ama maalintii ka horeysay soo dhiganay cashir bilarkeeni koowaad. Bilarka waa tiirarka uu medical ethics ku dhisan tahay. Bilarka labaad ee maanta dhigan kii hore wuxuu ahaa autonomy kan wuxuu ahaa bilar 2 oo markaa benevolence ama benevolence sheegaya. Benevolence-ku sidii aynu hore ku soo qaadanay waxaynu oran jirnay wax kasta waxaanu sameynaynaa definition ama waxaanu sameynaynaa qeexitaan si aynu u fahanno waxa dambe soo socda. Marka aynu qeexitaan u sameyno example yaro kooban aynu ka sheegno si aad kasoo ugu sii hayso waxaynu ka wada hadlayno oo dhan. Benevolence-ku in medical ethics definition-kiisu waxa weeyaan waa in qofka patient-ka acting in the best interest of the patient. Qofka patient-ka ama qofka tusaale ahaan oo kale ayaa xanuunsanaya bukaanka waa in loo qabtaa waxa ugu wanaagsan ama best interest-ka waxa ugu wanaagsan waa in loo qabtaa. Waxaas oo guul ah oo wax wanaagsan ah sidoo kale in well-being-kiisa kor loo qaado promoting their well-being ama dadka bukaanka kor loo qaado wanaagsanaantooda ama fiicnaantooda ama wanaagooda wuxuu noqon karaa in caafimaadkooda kor loo qaado. Example waxa tusaale inoo noqon karaa in loo recommend gareeyo tusaale ahaan treatment taasoo ay ka faa'iido badan leh that most benefit taasoo faa'iido badan leh with the less taasoo markaa least harm dhibaato yar leh. Dawa qofkan loo qorayo dawadaas waxay noqonaysaa dawo faa'iido badan laakiin ay yar tahay side effect-geedu. Marka waa qofka patient-ka ah. Marka waxa weeyaan inaynu qofkii u doono benevolence-ka ama faa'iidada qofka in la doono. Tan waa mid ka mid ah ethics-ka ama akhlaaqiyadka caafimaadka. Inaadan ka dhex raadin laakiin adigu aad ka dhex raadiso qofkan faa'iidadiisa. Qodob baynu u qaadan doonaa. Qodobka ugu horeeya inuu ka qaadan doono waxa ka mid ah acting the patient best interest waa in qofka patient-ka ah waxa uu qabanaysaa uu noqdo waxa ugu wanaagsan ama waxa ugu fiican inuu noqdo. Maxaa ka mid ah qodobada soo hoosgelaya waxaa ka mid ah patient centered care. Patient centered care-ku wax kale ma aha waxa weeyaan qofku inaad u dhiibto mararka qaarkood care-kiisa or tailored decision with the individual's needs value. Qofka inaad ama qof tusaale ahaan ama individualska meesha patients-ka dadka ku jira waa inaad gacanta mararka qaarkood ka gelin kartaa go'aamadooda deedna aad la talin kartaa caawin kartaa aad u talo siin kartaa qodobo siin kartaa iyo adigu aqoontaada ku base garaysan adigoo ixtiraamaya tusaale ahaan their culture dhaqankooda iyo religious beliefs-ka diimaha ay aaminsan yihiin oo kale. Laakiin haddaad ka hor timaado waxa laga yaabaa in caqabad kaaga timaado qofka patient-ka aad daweyn kari waydo. Waxa la yiraahdo waxa laga fogaanayo waxa la yiraahdaa avoid paternalism oo waxa weeyaan inaad adigu iska gasho hawl inaad iska gasho. Marka don't override patient autonomy unless they lack of decision making capacity. Qofka ha iska gelin ama qofka ha ku xukumin autonomy-giisa. Autonomy-giisa waxaa la yiraahdaa qofka patient-ka ixtiraamo. Marka qofka patient-ka ah ha ku tacadiin respect-iga uu lahaa ilaa iyo markaa qofku uu qaadan kari waayo go'aan uu qaadan kari waayo capacity-giisa. Tusaale ahaan qofku ilowshuu leeyahay severe dementia uu leeyahay ama emergencies baa dhacayba ama qofku wadnaha istaagsan markaa kale ma ixtiraamaysa autonomy-ga waxyaabaha waa dhaafaysaa adoo xaaladda qiimeynaya. Advocate for the patient qofka patient-ka waa inaad la shaqeyn kartaa ama garab geli kartaa dadkii weeyaan protect vulnerable patients dadka vulnerable-ka nugul vulnerable patients-ka ah sida ciyaalka dadka waaweyn disabled-ka dadka curyaaminta ama indhaha ama ilxaadka la adigoo kala talinaya dadkaas ama ilaalinaya dhibaatada ka ilaalinaya iyo dayaca neglect-ka. Intaas waa inta acting patient waxyaabaha ugu wanaagsan aad u qabato. Sidoo kale provide treatment with their reasonable chance of benefit. Tani wuxuu qodobkani sheegayaa
in qofka aad siiso dawooyinkaasoo maxaa aad qaar reasonable ah. Reasonable waxa weeyaan inaad wax caddayn ah ku siin karto, laakiin haddaad iska siiso waxaa dhacaysa markaa in dhibaato qofka ay u keento. Tusaale ahaan evidence based practice, in uu jiro wax keenaya, tusaale ahaan inuu qofkan u taageerto support siiso. Tusaale ahaan oo kale maxaa markaa intervention supportskan ay siinaya waa maxay? Waa in si scientific research ah ama clinical guidance ku siinaya, cilmi baadhis ama wax cad ah oo aqoon cadi inay ku siin karto, sidoo kalena inay ku siin karto guideline, clinical guideline inuu ku siin karo marka dawadan iyo waxaan basic evidence based aad sheegayso. Waxyaabaha ka duwan waxaa ka mid ah avoid futile treatment. Futile treatment waxaa la yidhahdaa waxa bilaa faa'iidada ah. Dawada bilaa faa'iidada treatment-ka waa inaad ka fogaataa, iskaga fogow, iska daa, ha siinin. Do not prolong suffering with the ineffective therapies. Qofka ha u ogolaan ama ha siinin qofka dawo tusaale ahaan noloshiisa oo dhan dhaawacaysa. Oo maxay dawadaas oo noocyo markaa ineffective therapy, dawo aan waxba qabanin. Tusaale ahaan inta aad chemical siin lahayd, tusaale ahaan aggressive chemo for the terminal cancer, adigoo doonaya inaad qofkan kansar ka daweyso ayaad waxaa siinaysaa chemical ama chemotherapy baad siinaysaa with no survival benefit, isagoon qofkan daweyn. Tusaale ahaan qof baa metastasis ku sameeyey, wuu ku fiday, dhammaan jirkiisa oo dhan buu ku fiday, ha siinin, iska daa. Waxaad ku tiraahdaa ama palliative care u beddel oo dawooyinka garaaca iyo xanuunka gooya u beddel. Haddii kalena ka jooji dawooyinka, ha siinin. Qof baad arkaysaa isagoo digada ah oo last stage-ka maraya, haddana waxaa lagu leeyahay chemotherapy baa lagu daweynaya. Qofkaas oo kale benefit baad ka raadinaysaa, laakiin dawo uma qorin. Adaa faa'iidaya, isagu faa'iido kuma qabo. Sharing decision making, inaad samayso decision making-ka sharing samayso, oo aad collaborating with patient, qofka patient kala xiriirtaa ama aad wargelisaa with waiting options, adigoo miisaamaya optionadiisa kala duwan. Tusaale ahaan oo kale waa in qofka patient-ka u sheegtaa go'aamadiisa kala duwan, inaad tiraahdo hawsha ka waran, hawshaas qaadanaa, sidaas sameynaa, sidaas ku wanaagsan. Tusaale ahaan oo kale waxaad isku dhigaysaa surgery-ga macnaha waxaa la yidhahdaa in qof qalliin aad u samayso. Waxaad oranaysaa qalliinkaas ku samayn karaa, laakiin physical therapy for chronic pain waxaa kaaga wanaagsan in physical therapy aad samayso. Waa isbarbardhig aad samaynayso. Tusaale ahaan marka qofku wuxuu dooran karaa ama surgery gu dooran karaa ama physical therapy gu dooran karaa, isagana markaa go'aanka iska leh. Haddii markaa aanu ahayn xaaladii aynu soo sheegnay sida severe dementia, ilmaha yar hadduu yahay, waxyaabahaas oo kale. Qodobkeena saddexaad aan ku qaadanayno benefits-ka waxaa ka mid ah balance benefit against risk. Benefit-ga faa'iidada iyo faa'iidada ayaad qaadanaysaa, ayaad balance garaynaysaa adigoo ka hortegaya waxa la yidhahdo riskiga meeshan ka saarna, laakiin faa'iidada qaadan. Risk benefit analysis, waxaan sameynaynaa inaan analysis garayno faa'iidada iyo faa'iido darrada. Waxaad hubinaysaa ensuring the potential good outweigh patient harm, adigoo waxyaabaha potential good-ka ah ama waxyaabaha faa'iidada badan leh ee faa'iidada ku jirto, adigoo miisaamaya waxyaabaha dhibaatada ku jirto. Marka waad miisaamaysaa ama waa issue garanaysaa, waa hubinaysaa teebaa faa'iido badan, teebaa dhibaato ku jirta. Tusaale ahaan dawaa lasoo qoray prescribed drug with the side effect, waxay leedahay side effect only if the benefits are significant. Laakiin waxaa qofkaa siin kartaa haddii benefits isku wanaagsan tahay. Only qofka waxaa siin kartaa oo prescription u qori kartaa inay faa'iido leedahay. Minimize harming, minimize harming, in dhibaatada aad yarayso. Choosing last defensive option first, waxaad dooranaysaa ta ugu yar ama waxa ugu wanaagsan baa marka hore dooranaysaa, ta ugu dhibta yar laba dooranaysaa. Tusaale ahaan oo kale qofka waxaad oran kartaa noloshaada bedel inta aanad dawo u qorin hypertension. Tusaale ahaan qof hypertension lagu soo sheegay, waxaad oranaysaa lifestyle-kaaga bedel, taasaa ka wanaagsan inta aad siin lahayd dawadii hypertension-ka. Way emergency exceptions, emergency-yada qaar baa markaa ka reeban in life threatening situation, xaaladaha qofku nafta kasii baxayso, sida tusaale ahaan qofkii baa wadnuhu istaagay, wadnuhu shaqayn waayo, waxaad qabanaysaa action immediate without consent if delay.
haddii aanay jirin consent delay ku dhacaya ama habsan ku dhacayo waad qabanaysaa action shaqaad u qabanaysaa qofka shaqadaad u gelaysaa adigoon ixtiraamin autonomy waxa la yidhahdo iyo adigoo ixtiraamin benefitska will cause it harm adigoo markaa muxuu ahaye haddii uu xataa harm hadduu dhibaato sababayo laakiin taas aanay dhibaato hadduu sababayo waxaas laakiin waad ka yaraynaysaa adigoo ka ilaalinaya dhibaatada ayaad hawshaas sida ugu wanaagsan u gelaysaa waayo qodobada kale aynu sii gelina waxaa kamid ah inaan challenge-ga iyo pitfallska waxyaabaha qarsoon iyo dhibaatooyinka inta badan qarsoon waxaa kamid ah pitfalls waxyaabaha qarsoon waxaa kamid ah over treatment inaad siiso qofka over treatment waa waxyaabaha qarsoon ama challenge-ga dhibaatooyinka in haysta over treatment waxaa kamid ah pressure for the patient famines haddaad qofka over treatment siiso kolba siiso dawo siiso dawo jawaan dawooyina usoo qorto waxyaabahaas itikay ka baxsan yihiin adaa danaysanaya waxaa kamid ah tusaale ahaan inaa qofkii antibiotics u baahnaa field infection ku dhacay in antibiotics siiso taas waa dhibaato weeyaan marka taas waxay dhacaysaa in muxuu ahaye qofkii aad bahalayso disho in sidoo kalena waxyaabaha kalena kamid ah inaa qofkii dawo hoosiin taasna way dawada u diidaba taasna waa waxyaabaha challenge-ga inaga imanaya under treatment qofkaas inaanu maxay dawo aan siin adigoo biasimia adigoo tusaale ahaan resource-kaagu yaraaday waxyaabahaas oo kale adigoo tusaale ahaan kalaya caustic concentrate qofku inaanu lacagba haysan aanu saameyn ku yeelanaya taasna waa waxyaabaha challenge-ga inaga hor imanaya eticskeena conflict interest inaad danayste inaad noqoto tusaale ahaan Venetian incentives waxa la yiraahdaa inaad adigu dantaada raacato tusaale ahaan kale waxaad tiri waxaad recommend galaysaa unnecessary procedure for the benefit waxaad tiri qalin baad galaysaa adiga laakiin faa'iido ku qabo isagu faa'iido kuma qabo marka adigoo alternative kala helaya waxyaabo kala helaya baad u gashay hawsha waxyaabaha kale aan doonno waxa kamid ah how to apply beneficency in practice maxaa sideen u apply karaynaa sideen ugu shaqaysiinaa ugu horreyn documentation discussion qaado oo tusaale ahaan recording informed consent-kaagii samayso informed consent-ka hore usoo sheegnaa waxa weeyaan waa inaad ogeysiiso wax kasta oo dhacaya qofka waay taas markaa waxa weeyaan high risk-gii baa markaa decision-kii high risk-ga ahaaba hoos u dhacaya ama regional for high risk decisions-kii baa meeshii aad samaynaysa waay ethics consult-ka waxaa kamid ah seeking guidelines from hospital ethics community for the complex cases waa inaad raadisaa guidelines-ka cisbitaalku isticmaalo si aad ugu raadiso consult ethics-ka u ilaaliso ama bulsho ha ahaato ama meeshan ha ahaatee in aad samayso seek guidelines from the hospitalku leeyahay inaad raadiso siduu u shaqeeyo nidaamyadu u shaqeeyo muxuu ka yeelaa qofka muxuu dhibaato sameeyaa waxyaabahaas self reflection waxaa la regular asking waa inaad weydiisaa su'aalo badan am I truly prioritizing this patient's welfare waa in marka ugu horeysa aad isweydiisa adigu laftarkaaga too qofkan sidii ugu wanaagsan miyaan u qabtay hawshaa miyaan sidii ugu wanaagsan u qabtay hawshan sidaan u qabtay waa inaad isweydiisaa taas waxay kaa caawinaysaa in aad mar walba aad isla xisaabtaan naftaada in aad ka gaadho go'aan in aad qofkan u qabatay wax wanaagsan iyaanu qaban marka tani waxay kaa caawinaysaa inaad mar walba aad adigu is xisaabiso naftaada marka intaan lagu xisaabin adigu is xisaabi qofkan miyaad ka danaysay mise kama danaysan faa'iidadii uu lahaa qofkani ayaad u qabatay mise ma qaban qofkan miyaad lacag cuslaysay mise ismaaciil waa self reflection baa la yidhaha in adigu is qiimeyso qofka inaad waxay u qabatay marka aad iyo aad buu mahadsantihiin intaasi waxa weeyaan waa intii qodobkeeni bilarkeeni labaad medical ethics aad iyo aad buu mahadsantihiin waxaan kugu dardaarayaa in aad akhrisato ku ceeshato insha Allah taala qalinkii buugaagana aad ku qorato wixii nootay insha Allah